wararkii ugu dambeeyay naga soo gaarayo gobolka City gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya in maleeshiyaadka ismaamulka Afarta ay weerar culus ku soo qaadeen shacabka Soomaaliyeed ee gobolka City isla markaana halkaasi ay rabeen in shacabka ay ku gumaadaan waxaana khasaare geystay dhibaato ay u geysteen shacabka deegaankaasi isla markaana ku sugan gobolka City maleeshiyaadka maamulka Afarta ayaa si rasmi ah halkaasi weerar culus uga geystay iyagoo iska caabin xooggan kala kulmay shacabka halkaasi ku sugnaa isla markaana weerarkaasi ku soo ekeeyay in dadka halkaasi ku sugan gabi ahaanba ay guryahooda kala wareegaan maleeshiyaadkan Afarta ayaa weerar muddooyinkii dambe ku hayay dadka shacabka ee ku dhaqan deegaankaasi isla markaana waxaa la sheegay in halkaasi ay jiraan khasaare kala duwan ay soo gaarsiiyeen dadka deegaanka gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ku nool wararka ugu dambeeyay caawa naga soo gaaray gobolka City gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa si rasmi ah u shaqeeyay isla markaana u sheegaya in Afarta ay muddooyinkii dambe weerar culus ay halkaasi ka wadeen isla markaana ay rabeen inay ku gumaadaan shacabka halkaasi ku sugan deegaanada City ee deegaanka Soomaalida Itoobiya shacabka ku sugan ayaa isla markiiba iska caabin xooggan kala kulmay shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan gobolka City waxaana halka la sheegay khasaare kala duwan halkaasi ka soo gaaray Afarta oo muddooyinkii dambe weerar culus ka waday gobolka City gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya wararka lagu korsoonaan karo ka soo xogeen wararka rasmiga ah Afarta ayaa si rasmi ah loogu sheegaya in halkaasi ay jiraan isla markaana ay noogu warrameen xoog ugu dambeeyay ee ku saabsan dagaalada ka socda gobolka City gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya gobolka City muddooyinkii dambe waxa weerar culus ku soo qaadayay shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan Afarta waxa wararkaasi ku soo keenayeen deegaano ka tirsan gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya maleeshiyaadka ismaamulka Afarta ayaa weerar culus muddooyinkii dambe halkaasi ka waday waxayna rabeen in gabi ahaan dadkaasi ay kala wareegaan guryahooda iyo sidoo kale ay ka barakaciyaan deegaanadooda